waxa loo baahan yahay in si degdeg ah dhiig loogu shubo laakiin sida lagu helo nooca dhiiggiisu way adag tahay dad badan ayaa u dhinta dhiig bax marka ay dhacaan shilalka oo imika sii batay iyo marka ay dumarku umulayaan halkani waa cusbitaalka dawladda dhiig badan ayaa lagu kaydiyaa qalabkan laakiin bil kadib maalintii lagu shubay wuu xumaanayaa oo lama isticmaali karo waa sababta dhallinyaradani ay isugu xil saareen badbaadada dadka dhiigga u baahan dadku waxaan ku wacyigelinaa kow inay nooca dhiiggooda ogaadaan laba inay dhiig ugu deeqi karaan dadkooda tabaalaysan ama bulshadeena reer Somaliland iminka kaydka dhakhtarta waxa yaala dhalinyaro naaqbashay inay dhiiggooda ku tabarucaan oo aan dhiig ka shubnay marka kolba waan wareegnaa magaalada bulshada waxaan u sheegnaa muhiimadda dhiiggu leedahay intiina ogol na raacdana waanu kaxaynaa dhakhtarkaan geynaa sidoo kale waxaan leenahay page la yiraahdo bedbaadi.com qof kasta oo iska diiwaan gelin karo magaciisa nambarkiisa magaalada joogo halka inta deedayso qof dhiig u shubo qof familkaaga intuu dhiman lahaa waxaad si yar fudud page-ka uga heli kartaa qofka nooca dhiigga aad doonayso leh iyo macluumaadkiisa waa dhalinyaro baratay caafimaadka oo isku kaashaday diiwaangelinta dadka noocyada dhiiggooda waxaana ay bulshada faraan inay dhiig shubaan madaxa kaydka dhiigga ee cusbitaalkani waxa uu og yahay baahida loo qabo hawsha dhallinyaradani ay wadaan waxaa jira dhiigag badan oo yar oo groupka noocoodu uu yar yahay sida O negative B negative AB negative dhiigagaas oo kale waxay u baahan yihiin marka kuwaas oo kale in dad badan oo dhiigga lahoo is yaqaan dhiiggoodu oo marka loo baahdo yimaado kaydka dhiigga in la register gareeyo wacyigelin badan loo siiyo aad iyo aadna waxaan ugu mahadnaqnaa dhalinyarta badbaadi naf oo wacyigelinta ku jirta waxaan rajaynayaa populationka iyo dhalinyarta wadanka joogta inay aqbalaan oo ay yimaadaan oo kaydka dhiigga iska ogaadaan dhiiggoodu noocu yahay dhiiggana shubaan marka loo baahdo sidaas oo ay tahay haddana cusbitaalka dawladdu waa midka keliya ee bukaanka cusbitaallada kale la dhigo looga soo raadiyo dhiig lagu shubo soomaalidan yar unbaa taqaanaa nooca dhiiggoodu uu yahay taasi waxay muujinaysaa fahamsanaan la'aanta aanay aad u fahamsanayn muhiimadda ay leedahay dhiig shubistu amaba in ay iyaga laftigooda u baahan karaan aanay dareensanayn qaar ka mida dadka ayaanu weydiinay nooca dhiiggooda iyo inay weli dhiig shubeen wallaahi walaal dhiiggayga ma eegin mana garanayo wuxuu yahay welina iskuma daynaa soo eeg dhiiggayga waxaan ogaaday isla sanadkan oo waa O+ sanadadii hore maan ogeyn dhiiggayga caynku ahaa markaa awood uma lahayn aan shubo maadaama aanan garanayn markaa sanadada soo socda iyo sanadkan insha Allah waan rajaynayaa inaan soo dhaqsaa badan sadaqadaysto dhiiggayga waan shubo insha Allah dhiiggaygu noociyo wallaahi ma garanayo weli ismaan baadhin nabarnaygu muu dhicina maxaa isbaadhi baan dhiiggayga ku ogaan karaa kuwani waa bulshada ku nool caasimadda Hargeysa oo laga yaabo inay wax barteen bulshada inta ugu badanaysa waxa ay ku nool yihiin miyiga iyo tuulooyinka way u baahan yihiin dhiig koodana waa loo baahan yahay laakiinse warka ma hayaan Sidiiq Maxamed Burmad BBC Hargeysa